أمني مركا لا يرادو وأنا بتقليو مركا قفك هي أدي أمني إنكم كم مجعونا وحيل من نغطي وحي عرلق فيلايو عريا مكتي مذوكلي محايا لي أساو حالك السوق إنه السوق ضدك مساكين تا شعبك وكل حنولي أمن جود إنه السوق على جربي أيجي يودلي أيجي يوداوعي هرين لك فيلايا ما هين تاس أيها وحي كنتي إلا إيه هبين هره إلا إيه شلي إلا ساعة إن دبتها جنة نسيب وناك dadki dembigaas geystay oo falkaas geystay booliis iyo nabad sugidba way isugu jireen intiba waa la soo qabtay xabsigayna ku jiraan waa xiran yihiin maxkamadda la saari doonana sidaasay kale noqonaysaa shafaafiyay noqonaysaa oo meediuna ka qayb galo annagana ka qayb galo si aan u hubinno meeshay xaaladooda ku dambayso waxa waaye waxaan leenahay dilaayow madanqadow damiir laabow aan isdayno haddii aadan damiir lahayn oodan danqanayn oo aad dilay tahay adiguna waa lagu dilayaa maxkamadda ciidamada maalin dhawood waxay fulisay xukun dil ah waxay ku fulisay 2 nin ee si xaq darro ah oo sharci darro ah 2 nin qof oo dilay ninna xamar weyn oo ahay kii lagu dilay midna balcaday ahayd labadii toogasha lagu xukumay waana lagu fuliyay ilaahay wuxuu leeyahay walakum fil qisaasi hayatun ya ulil albaabi dadka aqliga u saaxiibka ahayow qisaasta waxa in kugu sugan nolol leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala umadaana asaa abuuray maslaxadoodana asaa yaqaan adiga marka hadii shalay mid asgari oo adiga kula mid intoo wax dilay la dilay adigu maanta maxaa ku kalifa inaad wax disho macnaha damiirkaaga maskaxdaada miyaan joogin miyaadan aqli lahayn waana isweydiisaa isla shalay nin oo asgari ah ayaa bajaajile wuxuu ku dhiftay xabad zoobe agteeda waan wada joognaa taliyaha booliiska isla markii waxaa la wacay cidda uu la shaqaynayay asgarigaas isla markii la soo qabtay wasiirkii arrimaha dibadda gacantiisa intuu ku soo qabto xabsiga keenay waxaan maraynaa annaga waa bislaanay bisaylkuna wuxuu keenay inaan cid loo jixinjixa aysan jirin waxaan rabaa halkaa inaan uga gudbiyo ciidanka ama militariga ha ahaado ama ha ahaado kuwa booliiska ama kuwa nabad sugidda ha ahaadaane waxaan rabnaa inaan halkaan uga gudbinno war akhiyo wax saaxiibo waxa dilin xabaddu yaysan ka horeynin xabaddu xal maahan xalka kan ugu dambeeyo waa xal maahan xabaddu sidaa darteeda ha ku degdegin inaad wax disho madaxweynuhu wuxuu go'aan ku gaaray horena u sheegay ciddii wax dishay in la dilaayo taas ayada ayaana laga dhabaynayaa annagana shacabkan muqdisho mas'uulka ka nahay maalin kasta uma dul qaadan karno inay hoostayna ku raftaan masaakiinta inay hoostayna ku cawdaan oo maalin walba mid la dhaawacay iyo mid la dilay inaan maalin kasta dugna ka taacsiino uma dul qaadan karno sidaa darteed waxaan rajaynaynaa arrintaas ayada ah inaan ka gudubno haddaad damiir laaba dilaay aad tahay oo doqon aad tahay oo manxa aad tahay annagaana ku daynayn annagana ku daba taaganna waxaa soo hore kuwa khawaarijta ah khawaarijtu sideedaba shacabkan Soomaaliya dagaal kala dhaxeeyay cid ay wax saanfalaan ma jirto ama soo jeed ama sii jeed waa kugu maqan yihiin khawaarijtu iyaduna waa lagu maqan yahay markii lagula dagaalamo goboladii ee lagu soo baabi'iyay ayay waxay soo dhex galeen shacabka ay soo dhex galayaan dadweynaha Soomaaliyeed waxaan leenahay garawaay ha qarsanin ee banaanka soo dhig aan wada qabanno haddii Ilaahay yiraahdo